subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyno dowladda Qatar ayaa mar kale ku celisay in aysan aqbali doonin dalabkii ay u gudbiyeen dowladaha uu hogaaminayay Sacuudiga ee go'doomiyey xilli maalin oo kaliya ay ka hartay muddada loo qabtay in Qatar ay ku aqbasho 13 shuruudood oo loo soo gudbiyey. Wararkii ugu dambeeyay ee qalalaasaha diblomaasiyadeed ee Khaliijka waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni. xilli maalin ay ka harsan tahay muddada loo qabtay xukuumadda Dooxa ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sheegay in dowladdiisa ay diiday waxyaabaha ay ka dalbadeen dowladaha Carabta ee go'doonka geliyay, balse wasiirka ayaa afka ku balaariyay inay diyaar u yihiin in wadahadal ay la galaan dowladahaasi. hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ka sheegay magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga, waxa uuna si adag u xusay in dowladdiisa marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo wax u dhimaya madaxbannaanideeda. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay socdeen dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu xaliyo xiisadda cakiran ee u dhaxaysa xukuumadda Dooxa iyo 6 dowladood oo Carab ah oo Sacuudigu ay horkacayso. haddaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaan weydiiyey maxaa la filan karaa inay dhacaan haddii ay dhammaato muddada loo qabtay xukuumadda Dooxa oo ku eg maalinta Isniinta. waxa laga filayo in xal laga gaaro arrintaasi waa aad u adag tahay. ilaa hadda ma jirto wax haba yaraatee xal u eg oo muuqda, maadaama muddadii ay u qabteen wadamada khaliijka Qatar ay u qabteen ay dhamaatay ama hal maalinba ka harsan tahay. Qatarna waxay diiday sidaan ogsoonahay dalabaadkii ama arrintii laga dalbaday. sida muuqata marka arrintaas waxay u eg tahay inaynan xal degdeg yeelanaynin. arrintuna waa arrin ka culus sidii la filayay in badan oo dadku ay qiyaasayeen. talaabada ay qaadi doonaan marka waqtigu dhamaado wadamada khaliijka iyo Masar ma ahan mid hadda laga sii hordhici karo oo la ogaan karo, laakiin waxyaabaha la filayo ama la qiyaasayo si inay samayn doonaan waxaa ka mid ah inay nuucuna qabateen xagga dhaqaalaha ah ugu yaraan go'aamadaas ay qaadan doonaan. laakiin waxaa aad iyo aad xoogaa u fog oo suuragal ahayn in tallaab military ay isku dayaan. dowladaha Carabta, kuwa Muslimka iyo dowladaha reer galbeedka ayaa ku kala qaybsamay xiisadda ka alowsan mandiqada Khaliijka, taasoo aysan noqon sida ay doonayeen isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahinaya sida dowladaha caalamka ay ugu kala qaybsameen xiisadda ka oogan Bariga Dhexe. go'doominta lagu soo rogay waddanka Qatar markii loo fiiriyo jawaabtii ay ka bixiyeen wadamada jaamacadda dowladda Carabiga ku jira intooda badan waxay ka istaageen dhexdhexaad markii laga soo reebo wadamo dhowr ah oo la saftay isbahaysigan oo Sacuudiga hogaaminayo sida Yemen iyo Liibiya oo kale. sidaas si lamid ah markii la fiiriyo wadamada aan jaamacadda dowladda Carabiga aan ku jirin laakiin islaamka ah sida Turkiga, Malaysia, Indonesia iyo Pakistan ayaa intooda badan waxay ka istaageen arrintaas dhexdhexaad, taas oo runtii muujinaysa niyad jab ku abuurtay wadamada Sacuudiga hogaaminayo. bal waxaa la dhihi karaa wadamada qaarkood sida Turkiga inay sheegeen inay difaacayaan dowladda Qatar haddii lagu soo xadgudbo. sida dhinaca kale marka laga fiiriyo wadamada waaweyn sida Mareykanka, Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska ayaga waxay ka noqdeen arrintan dhexdhexaad, waxayna muujiyeen in loo baahan yahay arrintan in lagu xalliyo arrin qaab diblomaasi. dhinaca kale dadaalada dhinaca diblomaasiga oo ay sameeyeen qaar ka mid ah dowladaha mandiqada Bariga Dhexe sida Kuwait iyo Turkiga ayaa noqday kuwo aan miro dhal noqon, taasoo shacabka dalkaasi Qatar ku abuurtay dareen ah in xaalku uu yahay mid cakiran. diblomaasi Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi, xogayaha koowaad ee safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Dooxa oo aan kula xiriiray khadka telefoonka, ayaa sharaxaya dareenka ay qabaan shacabka dalkaasi. kolley waxay dareemayaan jawigu weli inuu sii cakirmayo oo aanay weli kasoo raynayn xaaladii ama khilaafkii dhex taagnaa dowladaha khaliijka. marka muhladii ama waqtigii loo qabtay oo gabagaba ah iyo weli wax solution ama xal weli aan la gaarin iyo madaalibtii la keenay oo markaa iyagu ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan runtii noqotay wax ka degi waayey. marka jawiga imika iyagu ay ku sugan yihiin shacabkan oo magaranaysa ama dareenka ku xeeran wuxuu yahay dareen ay u arkayaan arrinkii inuu sii cakirmayo
weli aan xal loo hayn laakiin rajadu ma xuma waa la rajaynayaa in xal loo helo isfaham waagan dowladahan walaalaha dhex yaala dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo dowladda Masar ayaa xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda Doha isla markaasina ku soo rogay go'doon muddo haatan laga joogo in ka badan 3 toddobaad kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda Doha inay maalgeliso kooxaha argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.